maayirka magaalada Burco ayaa soo xidhay munaasabado ballaaran oo lagu soo bandhigayay ilaa 6 buug ay qoreen qoraayo dhalinyaro reer Burco ah oo u badnaa hablo waxaana bandhigyadaasi naadiga halkaraan ugu magac daray toddobaadka bandhiga buugaagta Burco iyadoo bandhigyadaasi oo socday 2 habeen ay buugaagtooda ku soo bandhigeen qoraa Bulaale Najma Cumar Cashuur Nadiiha Cumar Cashuur Farax Ayaala Dayaxweerar iyo Nadiire Cismaan Saleebaan bandhigyadan oo kala duwanaa bandhigyadii hore ee buugaagta ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayay waxyaabo badan oo hidiyo dhaqan ah isla markaasna ay ka mid ahaayeen cayaaro dhaqameed cuntooyin iyo agab kale qoraa Bulaale oo buugiisa hal qabsiyada suugaanta sharaxaya ayaa yiri ereyadu macnahoodu waa ugu adag weeyaan la kulmay muddana aan ku jiray talabaad waxa jira meerisyo badan oo wanaagsan oo la isku qabsado maadaama wax qoran oo hanti ah aynaan lahayn waxa jira gabay wanaagsan oo nin lahaa in kale lagu qoro aduguna aanad kala cadeyn karaynin labadan nin meeriskan kii lahaa marka reference-kii ama in aan sugo gabaygan cidii lahayd ayaa ah mushkiladda labaad qaaran sameeyay waa laga helayaa ma badna mana jeclaynan sameeyo kulay halkan mid baa ku jirta waxa oranaya wixii aad qortaaba qarniyadu u aayaan qalin baa adduunyadan hadba qoro wixii jira isaga tilmaanayo laga helay wixii tagay dhinaca kale afarta hablood oo iyagu qoray ilaa 5 buug ayay buugaagtooda soo bandhigeen mas'uuliyiinta iyo qorayaasha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan waxaana mid waliba uu sharaxaad kooban ka bixiyay buugaagta ay qoreen hablahaasi buugan la yiraahdo dhalinta iyo Facebook-ga kulay waa wax nagu cusub oo aalada cusub hadda soo baxay waana wax cajiib oo aanay dadka maanta waxaan arkay yar iyo weyn oday iyo islaam iyo sheekh iyo shariifba wala wada isticmaala Facebook muhiimadda ugu weyn ee buugan uu ka hadlayaa waa magaciisa la yiraahdo xurmo jacayl iyo xaqiiq dhaba waxa weeyaan ugu weyni dibta qurbaha iyo qoysaska kala maqan ee kala jooga dibadda iyo dalka gudihiisa buuga waxa ku jirta 19 qodob oo kamid ah waxyaabaha qoysaska burburiya inta aan ciwaanka horeeyay gelin waxaan rabaa inaan idin sheego waa maxay dhaqan buugu su'aasha horeeyay weydiinaya waa maxay dhaqan buu isweydiinaya marxaatimadoon waxa uu ka kooban yahay cutubo dhowra 2 cutub ayuu ka hadlayaa buugani ka koobaad waxa weeyaan waa guurkii hore kan dambana waa guurkii dambe abaha buugan uu isweydiinaya waxa weeyaan waa maxay qoraal muxuu yahay qoraal waxa weeyaan eray word tudur dhambaal ama buug qof maskaxdiisa ka yimi oo uu dabeetana bulshada kala soo gaarsiinayo iyo boqorkii daraya muuska ahaa intaas ay xidhan jireen hablo isku qurxin jireen waxayna noqon jireen qaad aad iyo aad u bilaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Sahl Aadan Marwe Seenam Yuusuf Cabdi Xildhibaan Hinda Xasan iyo gudoomiyaha Burco Printing Center iyo waliba dhalinyaro kale oo tiro badan oo ka kala timi gobolada dalka qaar kamid ah ayaa iyaguna halkaasi hadallo dhiirigelin uga jeediyay qorayaashani waxayna ku bogaadiyeen dadaalkooda iyo buugaagta ay soo saareen gabagabadiina maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo munaasabadaasi soo xidhay xalay ayaa ku dhiirigeliyay daayarta inay wax qoraan isla markaasna maamul degmahan ay heeliyo hoob la barbar istaagi doonaan waxaanu si gaar ah u amaanay naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan oo ku tilmaamay naadi wax weyn gobolka ku soo kordhiyay oo daayarta ku mashquuliyay wax akhris iyo qoraal si ay u soo baxaan jiil aqoon leh oo aqoonta ku tartama annagoo hore ugu ballan qaadnay iminkana waxaan leenahay aad iyo aad bay habluhu mahadsan yihiin waana soo dhaweynaa naadiga halkaraan ayagoo keliya maaha cid allaale ciddii wax qoraysa cid allaale ciddii wax faa'iidaynaysa ciddii keenaysa wax ku soo kordhinaysa waddankeenna wax ku soo kordhinaysa waanu soo dhaweynaynaa halkaraan iyo hablahaba waxaan leenahay soo dhowaada aad iyo aad baa u mahadsantihiin gabagabadiina waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan iyo shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey dhammaan boqorayaashii buugaagti soo bandhigay iyadoo shahaado sharafyadan ay ugu talagaleen naadiga halkaraan sidoo kalena ay abaalmarino kala duwan guddoonsiiyeen qaar ka mid ah asxaabtooda iyo weliba dadkii kala qayb qaatay soo saarista buugaagtoodan waa Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.